ramaax waxa soo xidhay oo soo ashkateeyay gudoomiye baashe waxana maxay ahayd uu shalay baashe soo qoray maxay ahayd dacwad ka noqosho qoray xeer laalinta iyo CID-da iyo maxkamadda sida sharcigaana waxay ahayd maadaama qofkii soo ashkateeyay si shakhsiyan lahaa wax buu igu sameeyay uu ka noqday in maxkamadda xoriyadiisa u celiso nasiibdaro maxkamaddu ma celin oo waxay tiri maxay ahayd barri nagu soo noqda waanu imanay saakadii ku soo noqday leeyin baa haddana eed cusubna loo dhiibay horta markii hore qof baa soo xidhay qofkii soo xidhay haddii uu ashkatidii ka noqday qofku inuu xoriyadiisa helaa oo uu soo noqdaa dabadeedna isagoo xoriyadiisa haysta haddii dembi la leeyahay waa lagu haystaa gal cusub oo dambe lagu soo furaa waxa weeye eedan dambena ma jirto cid ka soo qortay maxay ahayd baadhe ka soo qorin ugu tagay xabsiga Hargeysa ka soo qoray eedan dambe lagu haysto muu jirin tii hore ee uu baash ka noqday uunba maxay ahayd uunba laga soo qoray berigi marka imikana waxa jirta waxa weeye waxa laga dhigay qaranka dhibana laga dhigay waxa kale oo leeyri baasha dhibanaha labaadna hadda waa baasheen ogeyn ee ka noqday dacwadda ee shaaci macal media ka sheegay ayaa leeyri maxay ahayd dhibanaha labaad bii waxaan ugu yeedanay qodobo xeerka ciqaabta guuda sida 215 oo ah maxay ahayd kacdoon dadweyne iyo wax sheegaya qodobka labaad isaguna maxay ahayd 328 oo maxay ahayd sheegaysna maxay ahayd wix sheegay warar beena iyo qodobka saddexaad oo isaguna lagu yeedanayo ah ay sarkaal guud ramaax maxkamaddu waxay u ogolaatay inay waaran u jarto xeer maxay ahayd way u soo jartay waxa kale oo ogolaatay inay rumaan gareyso nasiib daro eedii hore ramaax labada qodob ee lagu soo eedeeyay wuxuu xaq u lahaa damiin gobolkuna way ka diiday raacfaankuna way ka diiday raacfaankuna way ka diiday waxa weeye markaa halkaa waxa weeye cadaalad darra ka dhacday eedan imka la soo saarayna waxa weeye nidaamkii ma waafaqsana waxa weeye eed laga ka gaarsiisay shalay baan lagu yiri uu ka noqday haddana isla maanta la keenay